أشرق النور المبين وأتى الهادي الأمين هل لنا الكون ابتهاجا وازدهى حق ودين أشرق النور المبين وأتى الهادي الأمين هل لنا الكون ابتهاجا وازدهى حق ودين في إمام المرسلين طائر الأفراح غرد معلنا ميلاد أحمد طائر الأفراح غرد معلنا ميلاد أحمد ها هي الأصنام زالت لم تعود في الأرض تعبد garaacista caruurta la garaacayo ayaa ah wax ka jira wadamada qaar gaar ahaan wadamada saboolka ah dadka Soomaaliyeed oo leh dhaqan wanaagsan oo soo jireen ah ayaa xilliga ay caruurta yaryar yihiin waxyaabaha ay aaminsan yihiin in caruurta lagu edbiyo waxa ka mid ah in la garaaco ama lagu ilaaliyo usha iyadoo ujeedaduna tahay in kor loo qaado edebtooda iyo anshaxooda أحمد عبد الله أحمد الله يقارن بالقاس أهنا أجاسمها هيئة أوركا تاكلين تأوبت كصوماليات أيا كور بحنية سيدا جراعستو أي أسامة يسوع عرورة مركي أي وحبرانيان أي وليبا دباتوين كسو وجهها. عبسيدة كقاعدة جراعستها بدن مثلا علمه وكتب وحبرشتي أما هيك مقتضينه نحيف وقاضي ديجان كي وحبرشة مقابل وحبرشة. مركا وإباتو معناها قلبي عروض عم الدرين كان سيكولوجيكال وحلوية كانت سامعين إسمعني مركا وحيالك وحكمت وحيالك كيني كستين حتى إنه كساد وحبرشة وأرقام وحمد أنا عقاب ما إباتو المعمرو garaacista caruurta la garaaco ee uu geysanayo macalinka waxa mararka qaar dhacda in ay caruurtu cabsi ka qaadaan in la garaaco ama ay la kulmaan ciqaab taas oo sababta inay caruurtu wax xafidaan haddaba inta in la eg ayay anfici kartaa ardayga cabsida wax ku barta ama ku xafida in waxaasi ay u noqdaan mustaqbal cabsida ka qaado garaacista badan oo مثلا علمه وكتب وحبرشتي أما هيك مقتضينه نحيف وقاضي ديجان كي وحبرشة مقابل وحبرشة وإباتو معناها قلبي عروض عم الدرين كان سيكولوجيكال وحلوية كانت سامعين إسمعني مركا وحيالك وحكمت وحيالك كيني كستين حتى إنه كساد وحبرشة وأرقام وحمد أنا عقاب ما إباتو المعمرو cilmi nafsi ahaan sida aan wada ogsoonahay ardaydu isku maskax maaha oo way kala maskax badan yihiin haddana qaar ayaa waxbarashada ku dheereeya halka qaar kalena ay waxbarashadoodu hooseyso haddaba sidee ugu wanaagsan inuu ula dhaqmo macalinku caruurta maskaxdoodu kala duwan tahay maaha inuu la dhaqmo macalinka ugu wanaagsan inuu macnaha mar walba dhibaatadiisa ama meesha dhibaatada ka haysto ilmaha ama haddii ciladi jirto waqtigaas kale inuu weydiiyo oo kala tashado oo waalidkii kala socdo oo haysto haddii wax dhibaya guriga ay joogaan oo kale haddii dhibaato ay ka haysto qoyska haddii dhankii mataqaana waxbarashada ama fahankeedii oo mataqaana ka haysto in macalinku uu muujiyo saaxiibtinimo dheer oo tusinayo ardayga waxa ay qayb ka qaadanaysaa kalsoonida uu ardaygu ka helayo macalinkiisa taas oo sababta in ardaygu wax walba oo noloshiisa la soo gudboonaata ama xaalad walba oo isaga ku dhacda uu sheegan karo macalinkiisa taasina waxa ay sababtaa in waxbarashadiisu uu sii wato ardaygu sidii loo baahnaa waxay keenaysaa saameyn aad u weyn oo mataqaana horumar laga sameyn karo oo qofku ku guuleysan karo waxaana aaminsanahay inay tahay wadada ugu habboon ee wax ku baran kara ay tahay saameyntaasoo keenaysa inuu midkaana wax ku oolaho faa'iidada dhasha midda kale waxaa kaloo muhiim ah waalidka laftirkiisa iyo macalinku inay xiriir leeyihiin si looga warqabo xaaladda ilmahaas ku sugan yahay haddii waxbarashadii uu ka dhacsan yahay iyo haddiiba uu yahay mid danaynaya waxaana loo baahan yahay deegaanka xataa goobta waxbarasho in waxyaalihii kale oo uu ama ciyaaraha iyo uu doono lahaa ama ciyaaraha kale garoomada iyo looniga doono lahaa haddii iskuulaadku ay leeyihiin garoon
markaan ka eegno dhanka iskuulada ardayda maraysa marxaladaha kala duwan waxaa macquul ah inaysan helin ama aysan fursad u helin inay kala doortaan waxyaabaha ay mustaqbalka noqonayaan iyadoo aan ardayga xorriyad buuxda aan la siinayn si uu u kala doorto waxa uu noqonayo mustaqbalka taas oo sababta in uu ka fikiro markuu waxbarashada dhammaysto ama uu u gudbo heer jaamacadeed. waxaa la oran karaa marka hore waxaa la rabaa ilmahaas in la ogaado arday waliba maadada uu ku fiican yahay ayaa mar walba mustaqbalkiisa u noqon kara. haddii ardaygu yahay mid xisaabaadka iyo ku fiican waxaa laga yaabaa inuu maskaxda ku hayo inuu noqdo xisaabiye. haddii tusaalahaan ardayga heerka secondary soo gaaro xisaabta iyo physics-ka ku fiican yahay inuu ardaygaas danaynayo inuu noqdo engineer oo muhandis. haddii dhanka biology-ga iyo qofku ku fiican yahayna waxa weeyaan waxaa halkaa kaga muuqata inuu doonayo cilmiga caafimaadka ama science-ku aad inuu danaynayo. marka mar walba waxaa muhiim ah qofka in la ogaado maadada uu arday waliba ku fiican yahay. haddaba sidee ugu wanaagsan oo macallimiinta ardayda wax ku bari karaan iyagoona u adeegsan wax garaacis ah ama wax handadaad ah handadaadaas oo lagu handado marka ay ardaydu ka gaabiyaan waxbarashadooda. waa kan Axmed Cabdullaahi Axmed oo mar kale sharaxaya. qaabka ugu habboon ee ardayda ku baran karo waxa weeyaan in la helo isu dheelitirnaan. waxay isu dheelitiraanta ka imaanaysa dhankii waalidka macalinka iyo goobta waxbarasho. intaas haddii la helo waxa weeyaan cadaadiska ardayga u imaan kara waxa weeye ilmaha kani meeshii uu ka carari lahaa waxaa imaanaysa inuu yidhaahdo waxa kan aad ku odayso wax qiima kuguma fadhiyaan waxa muhiim ah waxa uu dad kula doonayaan goobtii walba oo soo jeedinaya haddii loo helo oo uu ogaado in waxbarashadu ay xiisan tahay xiisagelin loo siiyo. xiisagelintaas ayaa waxay keeni kartaa inuu ardaygaasi daneeyo waxbarashada. uu ka carari lahaa laakiin haddii mar walba ciqaabna meel u taalo waxbarashadana aysan degeyn taas waxay keenaysaa warqadii waalidkana iyo macalinkana uu meesha ka maqan. taas waxay keenaysaa waa ciqaab inuu u arko meesha dhanba. taana waxa weeyaan waa dhibaatada ugu weyn ee meesha taagan. marka taa bedelkeeda ayaa mar walba inuu baahannahay. allah ha u naxariistee Abshir Bacaadle ayaa gabay uu kaga hadlayay in ardayga si tartiib ah loogula dhaqmo oo aan garaacis waxba aan u geysan la garaaco taas oo markii dambe sababta ardaygu inuu noqdo qof cuqdadlow ah ama dadka aan la hadlin. madaxiya ilmaha lagama tumo meesha haalistaaye waa muuminiin awliyaa oo ilmiriglaaye mid yaroo jiraalo dhashaa lagama taalaaye tumidii maslaxad loo arko lagama maarmaana miyirkaaga oo taama iyo gacanto miisaaman miskaha iyo dhabarkiiyo majaha meelun ka xanuuji ha ku magaagin caradu ibliis muumin xuliyaaye ha moogaan xilmiyo saamaxaad hana majnuunoobin madaxa u salaax sida agoon waalidkood maqane indhahana ku maarmaari faraaxa ugu munsoone muruu'adi iyo guulguulku sharaf macallin weeyaane. waxbarashada dugsiyada iyo marxaladaha kala duwan ee iskuulka ayaa ah kuwa macallimiinta ay ardaydu u isticmaalaan handadaad iyo garaacis balse ardaygu markuu u soo gudbo heer jaamacadeed ayaa waxaa ka hara garaacistii macallinku u geysan jiray.